karibu sana Kiswahili waa baratay ma qaar inta ka bixina ku darso Kiswahili ma qaar ka baratay wachana nayo karibu sana hawataweza qadar waxa rabaa koodina ku bilowdo magacaaga saddexan magacayga waa Maxamed Qadar Ibrahim Umar oo hadda ku magac dheer Qadar Ibrahim qadarkeeyo qadarkeeyo markii la yiraahdo dadku wax badan is weydiinaya qadarkeeyo waa qof nin dhalinyaro oo Soomaaliyeed waa fanaan da'yar balse taariikhiyan qadarkeeyo intuu ku dhashay intuu ku soo barbaaray intuu ku soo waxbartay aniga ku shakhsiyan waxaan ku dhashay degmada Yaaqshid waxaan ku soo barbaaray Yaaqshid waxaan wax ku soo bartay Yaaqshid dugsi sare ma aanan gaarin balse dugsi dhexe ayaan kaga baxay waxbarashadeedana yani heerkan dadaalna fankana maanta waxaan ku soo gaaray yani dadaalkayga intaas aan soo waday qadarkeeyo su'aasha kale intaan ugu baxro inaan ku weydiiyo intaan fanka uusan u socon bixin waxa jira hal hees waxaan doonayaa inaan noqdo Chris Brown ki Soomaaliyeed yes هذا كهرب بندق أسميني سي تديكس of مقدش 2013 yes رياضي أيضا هاد مكور موذي مانتا أو مكوهر كشيء مسؤولي هيك ساعة كهذا أن وقتها Soomaalida inta badan nin lacag nacay ma jirto lacag marka la yiraahdo haddaad milyaneer tahay xitaa warabtaa wali haddaad magac yeelatidna waa sidoo kale wali yani isma dhigi kartid magac waa heshay oo meeshaada ku jooji no waxaad u baahan tahay mid ka sii balaaran inaad samayso aniga markii isma dhigi kariyo shacabka dhigi kara taas ma aaminsan inaad tahay Chris Brown Soomaaliyeed xilligan la joogo waan ku sheegay waxaan kugu dhahay aniga hadii yani aan ku dhaho qadar ahaan waan ahay yani waan isdhigi lahayba meesha aan rabo waan gaaray waa tahan lahaa sababtoo aan nin lacag helay maadaama inuu dadaal badan sii bixin un baa laakiin qof lacag diidaysa ma jirtaan kugu dhahay taasoo ay ka dhigmato micnaha yani exactly magacii hadii aan heli lahaa waan iska fariisan lahaa balse wali waan u sii baahanahay anigoo haysta ogtahay qadar intaad hees qaadaysay heestii kugu laxan adkeed heestay ahayd wallahi heestii waxay ahayd gabdhaha Soomaaliyeed aan xasuusto ayadaa i wareerisay waana markii ugu horeysay aan sameeyay laxan aad leedahay noloshayda aan sameeyay laxan aan qaado qaabka loo sameeyay iyo sida loo mara ayaa la tusay kadibna markaas waxaan isku dagay inaan anigu keensado waxaan anigu leeyahay qadar su'aasha xigta anagoo wali waqtiga aad u noo hayo inaan soo gabagabeeyo jacayl heesahaaga heestaad dhigi karto qadar oo dareen dhab ah weeye isla markaasina way ku taabanaysaa oo markaad iyadoo meel ka shidan maqasho aad dareento ama aad dhahdo alla ilaahay waxay kugu leedahay raadreed heestay weeye mahadsanid saaxiibkayga waxaa jirta ebel heesta cafis ahayd oo qiso dhab laga sameeyay ayadana kadib hadda markii laga soo gudbo waxaan aad u jeclahay runta markaan ka hadla heesta walaalnimo oo ayadana dhabsi ah xeebaha Soomaaliya ku yaala ee dheer ee gobolada kala duwan leh heebta u jeceshahay in aad waqti ku qaadato ku dalxiis tagto dhammaan xeebaha dalkayga ku yaala horta waa wada qurux badan waana jeclahay balse shakhsi ahaan qadar waxaan jeclahay cadale kalarada qofka bini'aadanka ama kalarada hadda adduunka yaala cadaan madow jaale buluug qadar hadii la dhigo kalar baa maanta loo dooqayaa loo dooraya adoo maqan la rabo in meel lagu dhigo kalarkee aad u farxda marka aragto waa maasantahay kay ku hormari lahay kan bini'aadanka kan dadka dharka kan kalarada dharka ku hormar okay kalarada dharka waxaan ugu jeclahay dynamkan aan wata hadda jeemiska oo kale iyo black and white kalarada dadka yes kuwa dadka markaan u boodno yani waxaan jeclahay qof aanan cadeen white side ahayn madow side-na ahayn iska normal su'aal aan wali lagu weydiin aan jeclahay inaan lagu weydiin rabo qadar inaan ku weydiiyo sida daacadda ayaan rabaa inaan uga jawaabto su'aasha waxay tahay qadar gabdhaha Soomaaliyeed haddii lagu yiraahdo gabar ka xulo maxaad ku xulan lahayd koow gabadha xulan lahaydna gabar dheer gaaban ama gabar cayiran gabar aata ah cad ama madow ay noqon lahayd sababta ku xulan lahaydna maxay tahay taas hore waa u sheegay laakiin gabdhaha Soomaaliyeed inkastoo ay wada qurxan yihiin laakiin sidaan filayo waxaan filayaa su'aashaas inay xoogaa igu naqanayso balse daatay waxa ku yiri inaad ka gabatay ma doonayo qadar waxaan raasay saxda inaan okay waa maasantahay waxaan jeclahay horta hooyadeeda hadda ii joogta ayeedeeda Faadumo inay yani dabeecad iyo kala haata dhaqan dadnimo yani
qof deeqsi oo yani howlkar ah oo yani maskiin oo qof walba inuu u damqado jecel naxariis badan kow tan xigta markii la yiraahdo kalarkeedan waa tan hore kugu sheegay midda kalena anaaba dheereen badhirada intay geeysaa أنا بطول سائد جاب سائد مرة أغير كل أكاتا ديرنا مرة مية يعني حوجا أنا يجي مدح في غل لكن أنا داري سائد أهم صوبته وقف جريئة أنا إنسان حاجة تجري كذا لا عبارة هي عيلان أنا عطو أنا مجعل عيل سائد أنا عطى سائد أنا مجعل لكن واحد بدل إني عطو أنت بدل ضد كأنه يا واحد اللي هذا قدر واحد وجاء إنه عيلانته حكي يا ابن عيل هذين قد ضد قلب لفوت قال له قلت لك البرادر أنا جو حن جعله إني إنسان عيلين عطني إنسان هين واضح قدر والله عزومية أوكي بديها لوجين يا ولي أنت الصومالي أسرك أهل لوج عزومية ما حد دور لهذا أنت الصومالي أنت الصومالي أسأل كعامر كلي هذا صور يمرق عب وهلب ليلها الوسمية كو مركي cuntada laga soo gudbo baadiyo oo la yimaado beledkana muufi iyo hilibkaas ariga brother wax kale hakayabin cabitaanada waxaan jeclahay isbarmooto liinta bambeelmada dalkeena ka baxda markii laga gudbana caanaha geelka yes aad ayaa u mahadsantahay sidaa waqtiga noogu hurtay isla markaasina aad noogu dhabar adeegtay waxyaabo badan oo qarsoon aad noogu sheegtay kaga mahadcelinayo karibu Kiswahili rood baratay ma qaaray inta ka bixina ku darsay Kiswahili ma qaaray ka baratay wachana nayo karibu sana hawataweza aad waa mahadsantahay alaba wiilka marka bilaabay